basaska ka kala baxa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa gabi ahaanba shaqadii joojiyay dadweynaha raaca baabuurtaasi ayaa qaarkood waqtigu kaga lumay sugidda baabuurtani kuwaasi oo qaarkood ay raacayeen baabuurta yaryar ee raaxada qaarkoodna waxay miciin bideen lugahooda guud ahaanba waxa haawanayay istaanka baabuurtaasi laga raaco ee dhinaca suuqa ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa ayaa xabsiga ku guray qaar ka mid ah dirawallada baabuurta iyo waliba baabuurtoodii waxaana telefishinka Star kula kulmay goob dadweynuhu basaskaasi ku sugayeen oo waqtigu kaga dhacay xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan oo arintan ka hadlay in goobaha dadkaasi basaska ka raaci jireen hadda waxa soo gaaray xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan arrimaha bulshada waa tahay gudida hoosaadka arrimaha bulshada golaha wakiilada xildhibaan bal arinta sidaad u aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim arintan waa arin ku cusub jamhuuriyadda Soomaaliland basaska waxaan leenahay hal laga jabiyo dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxa kale oo ka hadlaya maanta oo aan halka ka sheegayaa lacagta Soomaaliland cid qaadanaysa ma jirto meel kasto bakhaar kasto oo aad gashid dollar buu isticmaalayaa hoteelkaad gashid dollar buu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farayaa oo aan leeyahay shilinka Soomaaliland ha la isticmaalo ha lagu dhaqmo doolarkana hala joojiyo sixir bararkii baa saameeyay ayaga laftoodu waxa ka cabanayay shidaalkii iyo naftadii arrimahaasi qaali ku noqdeen marka dhinaca dawladda fariinta u diraysa maxay fariinta waxaan la leeyahay lacagta Soomaaliland waa in la isticmaalaa oo laga jeeb sixir bararkii waxa kicinaya doolarka kicinaya marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka xilalka hayaba waxaan leeyahay Soomaaliland hal isticmaalo oo bakhaarada laga isticmaalo afayeen u hadlay basaska waxa uu telefishinka Star u sheegay in xukuumaddu cadaadis xoogan ku hayso waxaan u dhignay shidaalkii oo nagu qaali garoobay dawladii annagii cuqubad nagu hayso annagiina daba taagan dantii dadka kama hadlaysa taayadii un beeriyanaysa annaga dad shidaaladan iyo waxaan markay ka hadasho ayuun baan annagu ay nala hadli kartaa halkaasay noo leeyaan inta kale ilaa ayaan isbedel helayno ama isbeerkeygii saamiyadeedu ay qaybsanayaan dadkeeguna way noo ogol yihiin annaga xukuumadda Soomaaliland ayaa arintani xal uga dhigtay xabsi ku guridda dirawallada iyo waliba baabuurtooda waxaana arintani isla cakirmay dirawallada iyo waliba dadweynihii baabuurtani raacayay Batri Koosar Maxamuud telefishinka Star Hargeysa